tirada dadka ku nool magaalada Hargeysa way kordhaysaa waxaana jirta in ay xawlina u dhismayso magaalada balse waxa liita kaabayaasha asaasiga sida fayadhowrka iyo maareynta qashinka wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan ku eegaya qashinka magaalada waa cirifka waqooyi ee magaalada Hargeysa halkani mar waxay ahayd meel nadiif ah oo deegaan ahaan aad u qurux badan imika se waagi baryaba way sii fool xumaataa Hargeysa waa magaalo sii fidaysa dadkeeduna way sii kordhayaan hun iyo hamba wixii ay nacaana halkan ayaa lagu soo tuuraa mana jiro qorshe cad oo dawladeed oo wax lagaga qabanayo dawladda hoose ayaa u xil saartay laba shirkadood oo ganacsato ah inay qashinka magaalada ka soo qaadaan oo ay halkan keenaan laakiin waa Hargeysa ka qaad oo Hargeysa ku qub halkani waa qaybta la keeno ee qashinka laga soo qaado xaradhigta magaalada Hargeysa ee xoolaha lagu qalo waa lafa iyo uus iyo dhiig iyo uurtoodu ay aad u daran tahay dhibaato badan bay dadka deegaanka ku qabaan ee halkan agagaarkan degan laakiin iyaga uu dhibaatadu kuma koobnay Hargeysa laftigeedu waa duleedkan meherada badan iyo dad badan oo goobta degan oo aan la kulanay iyaguna dhibaato ay ka qabaan oo urti ay gaaraysa naasa hablood waa buuraha ay Hargeysa caan ay ku tahay waa goob ku haboon dalxiiska waa astaanta dawladda hoose lafteeda labadan buuroodi haddana madaxda dawladda hoose ee Hargeysa waxa ay ka dhigeen meel qashinka la hoos geeyo dhaqaaluhu baahan yahay oo dhaqaalo badan waxaan u kala dirnay hay'adaha inay naga caawiyaan taasoo insha Allah aanu rajo weyn ka qabno in laan filkiina la dhiso halkii lagu aasayina la sameeyo marka waxa weeye waa awood ka badan dawladda hoose in ay sameyn karto goormaad ku rajo weyntiin waxaan ku rajo weynahay imika proposal u qornay meelo badan runtii waxaana loo sameeyay in waxna laga qaban doono waan ku rajo weynaa in insha Allah taala laga qabto sida ugu dhaqsaha badan xilliyadan roobabka waxa halis ah inay cudurro ka dilaacaan badeecada iyo dawooyin dhacay xoolo ayaa ku sumoobay cunay booyadaha saxarada ka soo qaada musqulaha iyo bullaacaduhu bartan bay keenaan ma sahlana in halkan oo kale lagu noolaadaa kuwa deganise way ku qasban yihiin waa mid ka mid ah qoysaska qashinka la dariska ah qashinka Hargeysa oo dhan halka argayl noo joogo iyo inta saxadayada ayuu baa lagu guray guriga yagana koob shaab ka cabi karmays taqsiga imaka neef xoolo hadduu kaa dhinto mid uusa ku arki maysi bac mooye dhiidhiitida iyo xoolo noosha iyo ayaa noogu daayey kowle dabadna argayga intuu cunay markii doogi ka soo baxay ay wada darato ma ka warqabtaan horta imika inay gaadhay magaaladu dadna ku ag nool yihiin cabashadoodu mid soo gaadhay wali habashadooda de waan wada hadalaa dadka inaanu in badan waxaanu kala hadalaa inaan dhismayaal rasmi ah inta de laga guuhoyaalka inaan laga dhisin anaga dawladda sheegta mubaarak maadish anaga dawladda waxay dhool dhashay tiqsiyo iyo qurub iyo xashish kowde wax kale ma kordhino wallahi billahi tallahi ana kugu dhaarnayne dawladda hoose ee Hargeysa cashuur ka qaadista maalin kama habsaanto waxa ay leedahay miisaaniyad u gaara miisaaniyadda guud ee qarankana qayb ayay ku leedahay intaasi waxa u dheer deeqaha caalamka oo qaarkood si gaar ah iyaga ay u maalgeliyaan Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa